wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqa hawada gaarsiisay garoomada diyaaradaha magaalooyinka Baydhabo iyo Boosaaso. qalabkaani oo loogu talagalay ilaalinta iyo la socodka hawada sare ee dalka ayaa maanta laga daabulay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. waxaana warbaahinta la hadlay oo ugu warbixiyay qalabkaani iyo waxa looga gol leeyahay in loo qaado magaalooyinka Baydhabo iyo Boosaaso maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Mudane Axmed Macalin Xasan. waxaan marqaati ka nahay qalabkii wasaaradda iyo hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay ugu tala galeen in kor loo qaado adeega ay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed siiso dayuuradaha isticmaala hawada Soomaaliya oo loo wado magaalada Baydhabo. Mudane wasiir, magaalada Baydhabo waxay ka mid tahay garoomada ay dawladda federaalka ama hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ay u cayimtay in maaragtay ay kordhinayso coverage-ka hawada Soomaaliya, raadiyaasha lagu xiraa in si fiican dayuuradaha oo dhan ay u gaaraan. Boosaaso ayaa qalab sidaa la mid ah ka socda oo maaragtay rakibaadii ay gabagaba maraysaa. Baydhabo waxaan sugaynaa taawarka in la dhammaystiro. Taawarka wuu dhammaystirmay, waan la wareegnay. haddana qalabkii ayaa la geynayaa, injineeradii rakibayayna dhammaantood wiigan ayay ka daba tegayaan. sidoo kale waxaa isagana warbaahinta la hadlay wasiirka gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Duraan Axmed Faarax. dadna waa dabeecad fiican oo dabeecadaha shinnida oo wanaagsan oo shinnidu meel fiican bay tagtaa, wax carfoon bay keentaa, malab wanaagsan bay samaysaa. marka waxaan rabnaa dadka waxyaabaha aan macnaha lahayn oo jirin oo sida daqsigii wax xun kula dhacdhacaya dadkaas waxaan isleenahay inay dad qaab ay u rabaan. marka gudnimada la sheegaa waa waxaas oo kale, qof waxaan jirin oo been abuura oo wax xun uu sheegaayo oo dalkiisii iyo dadkiisiiba inuu xumaan ka faafiyo sheegaayo, gudnimadu waa midaas weeye. marka waxaan isleenahay dadka ummadda Soomaaliyeed oo wanaagsan oo indhaha wanaagsan leh oo dabeecadda aan sheegno shinnidoo kale lehna waa kuwa hadda u jeeda horumarka iyo wanaagga ay ku tilaabsanayso hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed. marka waxaan leenahay run ahaantii guulaystaan leenahay. waan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo barada dalka oo dhan in la wada gaarsiiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin, ama qalab ha ahaato ama tababar ha ahaato ama shaqaalaba ha ahaatee si fiican ayayna ugu socotaa. ugu dambeyntii qalabkaani lagula soconayo dhaqdhaqaaqa hawada dalka Soomaaliya ayaa looga gol leeyahay sidii loogu xakameyn lahaa diyaaradaha sida sharci darrada ah u isticmaala hawada dalka. waana markii ugu horeysay oo wasaaradda gaadiidka iyo duulista xukuumadda federaalka Soomaaliyeed qalab noocan oo kale ah ay ku wareejiso maamulada kale ee ka dhisan dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Atore, Nairobi.